قدومي قبلك مدحوينيه federaalka iyo hogaamiyihii stateka intaas waxaan ka codsanaynaa in gandarsho la siiyo maadaama deegaan ay tahay in la siiyo degmo si ay u hogaamiso deegaanada hoos imaado maad waxay u sugnaatay gudoomiyaha gobolka iyo wafdiga uu hogaaminayo oo ka kooban golaha wasiirada xildhibaanada saraakiisha iyo cuqaasha waxaa kaloo maad u sugnaatay salaadiinta iyo nabadoonnada deegaanka gudoomiyihii deegaanka taliyihii deegaanka iyo dadkii reer gandarshe oo isku duuban oo si niyad samaan ah iyo farxad ah nagu soo dhaweeyey deegaankan quruxda badan intaas kadib waxaan ahay Sid Cali xildhibaankiinii idinku matalayay koonfur galbeed khaasatan shabeellada hoose gudoomiye ku soo dhawaada adiga iyo wafdigaaga deegaankan deegaan weynahan quruxda badan ee gandarshe reer gandarshe wafdigan socdo uljeedadiisa kaliya ma aha booqasho iyo salaan wafdigan wuxuu idinkugu imaaday waxyaabo horey oo idinkugu ballan qaaday maamulka oo iskugu jiro federaalkii iyo stateki oo ah maanta in laydin dhagax dhigo xaruntii maamulka deegaanka saldhigii iyo goob MCH oo goob caafimaad ah waxbarashadii iyo deegaankii maadaama ay ka jirto baahi biyo la'aan ah in ceelal laydin dhagax dhigi doono intaas kadib anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo gudoomiyihii gobolka madaxweynihii federaalka iyo hogaamiyihii stateka intaas waxaan ka codsanaynaa in gandarsho la siiyo maadaama deegaan ay tahay in la siiyo degmo si ay u hogaamiso deegaanada hoos imaado mudana gudoomiye adiga iyo wafdigaaga aad iyo aad u mahadsantihiin waqtigiini iyo booqashadiini deegaankan deegaankiina waaye baahiyo badan waa jiraan annagana waxaynoo noqonaya midaan step hore aan ku dhaqaaqayna reer gandarsho haddaan nahay waxaan kaloo rajaynaynaa in dowladdii intaan mashaariicdan hidda noogu talagashay iyo wax ka badanba inayna soo gaari doonaan aan rajaynaynaa reer gandarsho idinkoo isku duuban aadaa u mahadsantihiin